gobolka Kansas ee Mareykanka ayaa waxaa ku noolaa 2 canug oo nolosha mujaadalo adag kula jumay. Hal habeen ayaa waxa ay hal mar wada dileen qoys iska wada sheekaysanay, weliba marka ay dileen dushoodii waxa ay dulmarsiyeen baabuur si aanu qof marnaba qoyskaasi uusan uga harin. Qisadanise waa mid xaqiiqo ah, maxkamadda dilaayaasha ficilkani geystayna iyaga oo hortaagan waxa ay ku jirtaa barta YouTube-ka. Labadani wiil waxa ay ahaayeen dadka madowga ah ee Afro-American loo yaqaano. Ciyaalkani aabbahood iyo hooyadoodu waxay isguursadeen iyaga oo aad u yaryar, waxa ayna haysteen 3 canug. Labadani wiil ee qisadooda muuqaalkani aad ku arki doontid iyo hal gabar. Marka si guud loo fiiriyo ciyaalkani iyo waalidiintoodu da' ahaan sida uma ay kala fogeen. Waxa ay hooyadoodu bilowday in ay wax dhashay iyada oo 14 sano jir ah, aabbuhuna da'diisu sida uma aysan weynayn. Da'da waalidiinta oo yareed darteeda mas'uuliyadda iyo barbaarinta carruurta xilwan iskama aysan saari jirin, sababtoo ah iyaga ayaaba waalidiinta dad dhalinyaro ah oo markaasi nolosha indhaha u kala qaaday ahaa. Si kastoo ay ugu dhibtoodeen korinta carruurtani, haddana nasiib daro gabadhii ayaa ka dhimatay. Dhimashada gabadhanise qoyskii isku xirnaa waxa ay ka dhigtay 2 qaybood. Aad ayay uga naxeen xitaa waalidiinta marka laga soo taga ciyaalkani walaalaha ay ahaayeen, oo gabadha yarta ay la ciyaari jirtay oo walaashoodii ahayd. Markii ay dhimatay stress badan ayay ku abuurtay ciyaalkii iyo qoyskaba. Waxaa soo wajahay xaalado murugo ah. Waalidiintii si ay isaga saaraan murugta iyo xusuusta gabadha ka dhimatay, si ay isku ilowsiiyaan, waxa ay soo qaateen dhalooyin qambara ah. Dadka qaar waxay rumaysan yihiin stresska badan iyo walwalka in dhalo qambara ah ay uga filan tahay. Dadka aanan muslimka ahayna intoodii badan caadadani waa mid ka mid ah rutiinkoodii. Waalidiin iyagaba si dhab ah aanan u qaangaarin in alkool ay bilaabaan waxa ay sabab u noqotay in noloshani korinta carruurtay iska dhaafaan. Aabbaha iyo hooyada carruurtoodii ayay guriga ugaga soo tageen sida inaysan dhalin oo kale. Marka ciyaalkani hooyadoodii aabbahoodii ay ka tageen, waxaa labadani canug xoogaystay xiriirka walaalnimada ee ka dhexeeyay. Waxaa nasiib ahayd xilligan in ciyaalka ilaa 8 sano da' ahaan in ay jireen. Midkii weynaa waxa uu bilaabay in walaalkiisii ka yar wax walba uu la qaybsado. Hal meel ayay bilaabeen ciyaalkani yaryarka inay wax ku wada cunaan. Sida 2 qofood oo nolosha isku weheshanay ayay noqdeen. Qof weyn oo ciyaalkani u kala sheega waxa wanaagsan iyo waxa qaldanna maadaama aysan helin, waxa ay bilaabeen in wax walba ay sameeyaan. Waxa ay sameynayaanna waxa ay kaliya ka fiirin jireen xagalka waxani maxaa faa'iido inoogu jira. Haddii shaygu uu yahay shay xunna, ciribta dambe ee ka imaan karta marnaba kuma aysan fakar jirin. Ciyaalkani xoogaha marka ay sidaa ku koreen, waxa ay bilaabeen iyaguna in alkool ay isticmaalaan. Canug yar isaga oo fiisikaal ahaan aanan u weynaan in alkool uu isticmaalo, waxyeelada ugu badan ee canuga ay gaarsiiso waa maskaxdiisa. Waaba sababtay xitaa mamnuucay uga tahay wadamada muslimka aanan ahayn in ciyaal yaryar ah waxyaabahani laga iibiyo. Ciyaalkanise yaraantoodii ayay barteen in alkool ay cabaan. Waxa ayna intaa ku darsadeen in ay raadiyaan iyaga oo weliba aad u yaryar partner qof ay xiriir jinsi ah la samayn karaan. Waa ilmo yaryar ah da' ahaan marka loo fiiriyo, balse damacoodii iyo waxyaabaha ay samaynayaan waa waxyaabaha dadka waaweynka ah loogu talagalay. Waxa ay bilaabeen inay ugaarsadaan gabdhaha yaryarka oo iyaga oo kale ah. Xitaa inta ay laba jibaareen, dadka waaweyn inta ay soo hoos fadhiistaan ayay ka raadin jireen dareen jinsi ah. Tanina waxa ay sababi jirtay in ciyaalkani in badan dadku ay garaacaan, ciqaab dhib badanna in la marsiiyo xadgudub maadaama dad ay ku sameeyeen. Dowladda ciyaalkani waxa ay ka soo qortay iskuul, balse iskuulka ma uusan noqon meel ciyaalka ay wax ka bartaan. Maalin alla keena macallimiinta waxa ay sheegi jireen in hal cunug iskuulka isku dagaali jireen. Gabdhaha yaryarka ee iskuulka waxa ay ka dhigteen kuwa ay ku ciyaarayaan. Waxa ay qaateen discipline. Iskuulka waa laga fogay in muddo ah, balse qaladaadkoodii marka uu soo noqnoqday waxaa xal loo arkay midka ugu weynaa uguna dhibka badnaa in xabsi loo taxaabo. Sida dhabta ahna ficilada canugani uu sameynay waxay ahaayeen kuwa qofka xabsi uu ku mutaysan karo. Sidii ayaana la sameeyay isaga oo yar ilaa 23 sano uu ka gaaro xabsi ayuu ku jiray. Walaalkiisii kale ee ka yaraana iskuul ma uusan dhigan markii walaalkiisii la xiray. Waxa uu bilaabay in nolosha wejigiisii dhabta uu ku qaabilo. Keligiisii ayaana noolaa. Waxaana la sheegaa in dhowr jeer la arkay canugani isaga oo raba in meel uu iska soo laalaadiyo, yacni inuu isdilo. Nasiib wanaag kuma
kuma uusan guulaysan inuu sameeyo waxa uu doonayay. Sidaas ayayna noloshiisii ku socotay, in isaga la dilo ama in isaga dad kale uu dilo ayay noloshiisii u dhaxaysay. Hooyadiisii aabihiisuna sida inaysan dhalin oo kale way iska hilmaameen in dhulka ciyaal ay dhaleen inay ku nool yihiin. Muddo dheer kadib waxaa xabsiga ka soo baxay wiilkii oo 23 sano jir ah, isaga oo dabeecadiisu aad ay isku beddeshay. Waxa uuna xabsiga uu ku soo noqday nin aad u adag, waxba aanan ka baqin. Agtiisa wiilkani wax muhiim ah oo ka jira ma aysan jirin, walaalkiisuna dabeecadani qallafsan iyo adeega ayuu baray. Dabcan sidan inay noqdaanna waxa ugu weyn ee ku kalifaya ciyaalkani waa in nolosha keli ay ku ahaayeen, iyaguna isbarayeen sida dhabta ah ee loo noolaado. Mar haddii ay weynaadeen, da'dooduna da'da qaangaarka ay ku soo dhawaatay, waxaa problem weyn ku hayay ciyaalkani sida ay lacag ku heli lahaayeen. Sida normalka ahna waxa ay ku fakarayeen in shaqo ay raadiyaan si halkaasi lacaga ay uga sameeyaan, haba u yaraatee. Balse ciyaalkani wadooyinka ugu fudud ee lacagaha lagu heli karo ayay focus ka saarteen. Waxa ayna aaminsanaayeen wax walba ee wadada yaala in si dhib la'aan ah ay ku heli karaan. Habeen ayaa waxa ay galeen kalaab, halkaasi ayaa waxay isku barteen haweeney aad u farxad badnayd. Marka ay haweeneyda wada sheekaysteen, labadan wiil waxa ay ku dhahday, shaqo haddii aad doonaysaan magaaladaasi taga. Magaalo ayay u tilmaamtay, waxa ayna ku dhahday halkaasi waxaa ku yaalo xaafado dadka taajiriinta ah ay ku nool yihiin, waxaa macquula in halkaasi lacago badan aad ka samaysaan. Fikirkani damacoodii ahaa wiilashani in si fudud lacaga ay ku helaan aad ayuu u cajabiyey. Habeenkani waxa ay sameeyeen labadani wiil marka ay kalaabka ka soo noqdeen shir aad weyn. Midkoodii weynaa waxa uu ku dhahay midkii yaraa, waa inaan si degdeg ah magaaladani aan uga guurnaa, kadibna magaaladaasi gaar ahaan xaafadaha dadka taajiriinta ah ay ku nool yihiin waa inaan howlgal ka bilownaa. Waxa ayna soo qaateen 2 biskoolad. Ciyaalkani wax tajribo ah iyo juqraafi ma aysan aqoon. Yaa taajir ah, qofkee ayaa lacag leh, sidee ayaa lagu gartaa, ma aysan kala garanayn. Waxaabay intaa ka darneed ciyaalkani shaqadani wax dhicista waxay ahaayeen dad aad ugu cusub. Marnaba ciyaalkani niyadooda qarsoodi ama booliis ayaa idin soo qaban doona kuma aysan fakarayn. Dilayaasha professionaalka ah xitaa arrimahan riskiga ah marka ay sameynayaan boqolaal jeer iyaga oo taxadaraya ayay ku dhiiradaan, balse kuwani qorshahoodii inay isqariyaan ama in la soo qaban karaba uguma aysan jirin. Tanina waxaa ugu wacnay jahli aad u weyn oo ciyaalkani hayay. Lacag ay gacanta ku qabtaan ayaa u cadayd. Midkii yaraa ayaa waxa uu fikir ahaan uu soo jeediyay, magaalada marka aan ka tagno howlgalka inta aanan bilaabin ka hor waa in xaafadaha dadka taajiriinta ku soo wareegnaa. Marka aan soo qiimeynana waa inaan daba dhiganaa baabuurta qaaliga, guriyaasha ay yaaliin iyo dadka baabuurta ka soo baxaya. Waxaa ka dhaadhacsnay dadka baabuurta qaaliga ah ay ku socdeen, waxa ayna bilaabeen inay ilaashadaan dadka baabuurada qaaliga ah raaci doona. Nasiib wanaag, habeenkii ugu horeeyay baabuur modelkiisii ugu dambeeyay wiil saarnaa ayay soo daba dhigteen ilaa baabuurka wiilka uu ka dego. Markii uu baabuurka wiilka uu ka dega, biskooladoodii ayay ku qabteen. Kadibna marka ay baabuurkiisu baarteen wiilka, nasiib daro wax lacag ah kama aysan helin. Kaarka bangiga oo keliya ayay baabuurkiisii ku arkeen. Kadibna waxa ay ku qasbeen wiilkii in ATM-ka uu geeyo. Wixii lacag ah ee kaarka ugu jirana inuu ka soo saaro ayay ku amreen. Lacaga aad u badan ayay ATM-ka kaarka wiilka ay kala soo baxeen. Kadibna wiilkani waxay u kaxaysteen meel fog oo cidla. Halkaasi ayaa inta ay ku dajisteen ayay aad u garaaceen wiilkaasi. Habeenkoodii ugu horeysay oo waxay dhacaan maadaama ay ahayd jirdil mooye ma aysan dilin. Nasiib wanaag, lacaga badan iyaga oo haysta ayay soo baxeen. Kadibna kalaab iyo baashaal ayay iska aadeen. Isbuuc oo dhan lacaga ku filan maadaama gacantoodii ay ku jirtay, aad ay u faraxsanaayeen wiilashani. Balse lacagta marka ay ka dhamaatay sidoodii hore ayay shaqadii dib ugu laabteen. Haweeney shaqo ka soo baxday oo gurigeedii u socota oo baabuur qaali ah saaran ayay soo daba dhigteen. Kadibna marka ay baabuuradoodii ay la simeen ayay biskoolad ku qabteen. Kadibna wixii lacaga cadaan ah oo haweeneyda ay waday way ka qaateen. Dhabarka dambe ee biskoolada ayayna haweeneyda ku garaaceen.
kadibna way isagaga tageen. wiilashani shaqadoodu waa helista lacag caddaan ah inay isticmaalaan. dantoodu ma aha oo kuma ay fakarayaan in laga daba imaan doono. waddadani sida fudud lacagta loogu hela ayayna aad u jeclaadeen inay joogteeyaan. booliiskuse aad ayuu u baarayay labadani wiil. qof walba ay dhacaan booliiska ayuu kaga soo dacwoonayay, balse xilliga maadaama sida maanta oo kale meel walba kaamiro aysan ugu dhegsanayn, ciyaalkani in la helo aad ay u adkayd. ilaa habeen ay ka soo daba dhigteen haweeney bangi ATM-ka lacaga kala soo baxday. waxa ayna rumaysnaayeen haweeneydani haddii ay raacaan in lacagahani ay wado ay ka qaataan, kadibna ATM-ka inay ku celiyaan lacaga badan inta ku joogta oo dhan inay kala soo baxaan ayuu qorshahoodii ahaa. haweeneydanise marka ay baabuurkeedii soo gashay waxa ay dareemtay in lagu raad joogo. kadibna iyada oo soo socota ayaa waxa ay soo wacday gabadheedii oo guriga joogtay. waxa ayna u sheegtay in ay ka baqanayso baabuuro gadaasheedii daba socda. waxa ayna gabadheedii ay ku dhahday albaabka guriga iga fur, qaybta baarkinka baabuurkana iga fur. waxa ayna rabtay in si dhaqsaah gurigeedii ay u gasho. nasiib wanaag gabadheedii waxa ay samaysay sidii hooyadeedii ay amartay. albaabkana si dhaqsaah ayay uga furtay, qaybta baarkinka baabuurkana way ka furtay. haweeneydiina si dhaqsaah baabuurkeedii inta ay baakintay ayay gurigeedii gashay. wiilashanise marka ay arkeen in jaaniskani ay ku guuldaraysteen waxa ay xal u arkeen in guriga ay ka dabagalaan. guriga ayay fiiriyeen, kadibna waxa ay la sugeen ilaa habeenkii dadku ay ka kala yaraadaan. waxa ay rabeen xilli mugdi ah in guriga ay soo galaan, kadibna wixii lacagaha ay kala baxaan. nasiib daro guriga haweeneydani ay degneed waxa uu ahaa apartment dhowr kun oo isku dheggan ay ku yaaleen. wiilashani marka ay habeenkii guriga ay soo galeen way ku jahwareereen albaabka haweeneydani ay degan tahay. kadibna hal albaab ayay iska qiyaasteen, way gangaraaceen. markii laga furayba iyaga oo aanan hadlin ayay biskooladoodii la soo baxeen. qoys iska faraxsanaa, weliba dad markaasi isguursan rabeen meel ay ku noolaayeen ayay soo galeen. dadkani ayayna bilaabeen in ay baartaan. waxa ayna dhahayeen wiilashani guri aad u fiican oo qurxoon ayaad ku nooshihiin ee lacagihiinii soo bixiya. balse qoyskani sida ay u malaynayeen qoys taajir ah ma uusan ahayn. isjiijiid dheer ah kadib wiilashani waxa ay go'aan ku gaareen dhammaantoodii dadka qoyska oo dhan in hal qol isku wada geeyaan. mid marka uu qoriga uu ku hayo, midka kalena qolalka ayuu baarayay. marka ay guriga oo dhan wax qiimo leh oo la qaadan kara ama lacag caddaan ah ay ka waayeen, waxa ay ku qasbeen dhammaan dadkani guriga ku wada noolaa in dhanka iska wada bixiyaan. rag iyo dumarba wixii halkaa jooga dhanka ayaa laga wada saaray. kadibna kaaranka bangiga ee qolalka ay ka soo saareen ayaa waxa ay bilaabeen qof walba inay weydiiyaan qofka kaarkan iska leh. hal ayay ATM-ka u geeyeen. wixii lacagaha ee ku jira oo dhan in laga soo saaro ayayna ku amreen. wiilashani mid ka mid ayaa midka kaarka baasweerkiisii yaqaana baabuurka soo saaray. haddii nin uu yahayna waxa uu amray in ninka baabuurka uu wado isagana biskoolada uu ku hayo. midka kalena dadka guriga jooga ayuu biskoolada la dul taagnaa. saacad oo dhan ayay guriga ku jireen, mid bangiyo kala duwan ayayna farayeen in lacagaha ay kala soo baxaan. ugu dambeyn marka ay lacaga badan caawa ay la soo baxeen, halkaa uguma aysan tegin. gabdhihii qaybnaa ayay bilaabeen in halka ay ku kufsadaan. midka kalena waardiye ayuu ka ahaa dadka kale. xaajadoodii marka ay ka wada guteen, lacagahana ay soo wada qaateen, waxa ay qoyska oo dhan ay fareen in dhankoodii ay wada xirtaan. kadibna wiilasha inta ay gacmaha ay ka xireen ayay labadoodii baabuur ay ku kala wateen. dumarkuna iyaga oo sidoodii ah ayay baabuurka ku qasbeen in ay raacaan. waxa ayna geeyeen meel saacad halka gurigani uu ku yaalay u jirto oo meel cidla oo qofka haddii uu qayliyay xitaa suurtagal aysan ahayn in halkaa laga maqlo. marka ay halkaa tageen, baabuurka inta ay ka soo dejiyeen ayay dhammaantoodii ku amreen in saf ay wada galaan iyaga oo fadhiya. ujeedkoodiina waxa uu ahaa in gurigaasi oo dhan wax walba ee yaalay inay ka soo rartaan. dhanka sariiraha, telefishinada, wax walba waxa ay ku fakarayeen in subaxii suuqa ay ku iibin doonaan. kadibna dhammaan qoyskani mid ayay biskoolad madaxa ugaga dhufteen. qof walba marka ay arkeen in dhiig uu ka qubanayo si ay u xaqiiqsadaan in ay dhinteen ama in kale, si aanan looga daba imaanin darteeda baabuurka ay wateen ayay lugaha ka dulmarsiyeen. kadibna waxay u soo noqdeen gurigii ay dhaceen. dhammaan wixii yaalay guriga ayay bilaabeen inay ka rartaan. saacado in ka badan ayayna guriga keligoodii ay ku jiraan sida dad guriga iska leh oo kale ayay ugu baashaalayeen, iyaga oo marnaba aanan ku fakarayn in
lagu imaan karo. Si mucjiso ah dadka halkaasi ay ku dileen mid ka mid ah gabadha oo madaxa xilliga wax ugu xirnaa ayaa ka badbaaday xabadda marka ay ku dhufteen madaxa wax ugu xirnaa ayay santay kadibna gabadha hore ayay u dhacday maadaama wax culus madaxeedii ay ku dhaceen balse gabadha heer xabadda ay dili karta madaxeedii uma aysan waxyeelayn halka ay baabuurka ay ku maqsinayeen maadaama meel bacaad ah ay ahayd dhaawac yar ah ayaa soo gaar un mooye wax weyn oo halis ah ma aysan gaarsiin balse inay dhimato oo kale ayay iska dhigtay dhiigga dadka kale ka qubanaya ee aadka u badnaa ayaa iyadana loo malay inuu ka qubanayo kadibna sida ay ugaga tageen marka ay gabadhani yaqiinsatay in ay ka tageen iyada oo ooynaysa oo markaan boqol dilaacsan in dhammaan qoyskeedii oo wada meyda hal meel ay ku aragta ayaa waxa ay bilowday qof walba ay koontarooshay inuu neefsanayo ama in kale nasiib wanaag gabadhani waxay ahayd qof markaa la guursan rabay qofka guursan rabayna dadkani xabadda lagu dhuftay ayuu ka mid ahaa balse dhaawac culus ayaa soo gaaray ha yeeshee bar lagu bixiyey dilaayaashan inay halis yihiin sida ugu dhaqsiyaha badanna in la soo qabto gabadhaasi iyo ninkii dhaawaca ahaana hosbitaal ayaa loo qaaday kadibna guriga waxaa la arkay in dhammaan alaabtii ay ka soo rabteen arrintani dadka oo dhan shoog ayay ku dhalisay balse wiilashani waxoog ah meediyaha iyo joornaalada in iyaga la raadinayo xukuma aysan hayn maba aysan aqoonba sida joornaalada iyo qoraalada loo akhriyo maalintii xigtay haweeney wiilashani daris la ahayd ayaa waxa ay aragtay dad alaab badan ka soo dejinayo baabuurada yaryarka ah oo ay wateen waayo baabuurada yaryarka ah in alaabta guriga laga soo dejiyo waa wax laga shakin karo alaabaha noocani oo kale ah keliya baabuurada waaweyn ee loogu talagalay ayaa inta badan laga soo dejiyaa haweeneydani iyada oo iska qiyaas qaadanaysa waxa ay wacday booliis waxa ay dhahdeen waxaan ka shakisanahay laba dhalinyaro ah oo madow ah oo alaab baabuur yar ah ka soo dejinaya qiyaasta haweeneydanise sax ayay noqotay waaba wiilashii oo alaabta baabuurkoodii ka soo dejinaya gabadhii dhaawacayd ee hosbitaalka ayaana loo keenay wiilashani marka ay aragtay waa la celin waay oohin darteeda booliiska ayayna u caddaysay in dadkani ay yihiin kuwii gurigoodii dhacay maxkamad ayaa si degdeg ah wiilashani loo soo taagay dadkii maxkamadda joogay waxa ay sheegeen maxkamaduba sida xaafad oo kale ayay u maleeyeen dad naxsan ama walwalsan ma aysan ahayn xaakimka hadalkiisa dad uu ku socdo oo dhegaysanaya ma aysan ahayn wax sax ah oo iska normal ah dad samaynaya oo kale ayay ahaayeen waxaa lagu xukumay xukun ah in labada wiilba la degdelo maxkamaddu gadaal dambe waxaa la sheegay 2014 dalabaad loo qoray kadib xukunka wiilashani waxay u bedeshay xabsi daayin ah labadani qofood ee badbaadaysa isla 2014 ayay isguursadeen maanta waa qoys dhisan wiilashanise maanta xabsi ayay ku jiraan maxkamadoodiina YouTube-ka ayaad ka helaysaa